Ku soo dhawaada shabakada warbaahinta JMN ee laanteeda af Soomaaliga. Wararka JMN waxaad kala socon kartaan barteena Facebooka iyo YouTube-ka. Wararka ugu doorka roon oo maanta idiin hayno waxaa ka mid ah 6 qof ayaa isla markiiba ku dhintay shil gaari oo ka dhacay magaalada Finfinne. Taliyaha ciidamada Pakistan oo gaaray Tehran. Warbixin cusub oo loo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku saabsan kooxda Al-Shabaab. Maxkamadda dalka Suuriya ayaa xukun xabsi daa'in ah ku riday muftigii hore ee Awad Axmed Badruddin Xasoon. Wararkaasi oo tafatiran ayaa nagala socon doontaan JMN ilaa dhammaadka warkeena la socod habboon. 6 qof ayaa isla markiiba ku dhintay shil gaari oo ka dhacay magaalada Finfinne Addis Ababa. 6 qof ayaa isla markiiba ku dhintay shil gaari oo ka dhacay kaniisadda Kidahna-Mirat ee magaalo hoosaadka Boole Saaka sida ay boolisku sheegeen. Shilku wuxuu dhacay markii gaariga cagafta ah ee dhulka qodaya oo weyn oo ku dhacay gaari xamuul ah oo taariikhdiisu ay tahay koodhka 3-599-7 halka gaariga xamuulka uu ka safrayay Kooyifaje una socday Gooro. 5 nin iyo 1 gabadh ayaa isla markiiba ku dhinteen shilka kadib sida ay boolisku sheegeen bayaan ay ku soo dhigeen boggooda baraha bulshada. Boolisku waxay sheegeen in kuwa kale ee soo gaaray dhaawacyo fudud iyo halkii qaar kalena dhaawacyo daran ay soo gaareen. Waxayna sheegeen hadda in la daaweynayo kuwa dhaawacyada soo gaaray iyagoo intaasi ku daray in la baarayo sababta shilka. Taliyaha ciidamada Pakistan oo gaaray magaalada Tehran ee dalkaasi Iran. Taliyaha ciidamada Pakistan ayaa gaaray Tehran si uu u yareeyo xiisadda u dhaxaysa Washington iyo Tehran. Taliyaha ciidamada Pakistan iyo madaxa ciidamada amniga Field Marshal Asim Munir ayaa gaaray Tehran si uu wada hadallo ula yeesho mas'uuliyiinta sare ee Iran sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran. Booqashadan waxaa la sheegay in ay tahay booqashadii 3aad ee Field Marshal Asim Munir oo sanadkan ku tago dalka Iran isagoo sii wada dadaaladiisa ku aadan soo afjaridda dagaalka u dhaxeeya Mareykanka, Israa'iil iyo Iran iyo nabadeynta gobolka. Inkasta oo Pakistan lagu tilmaamayay marin u dhaxeeya Tehran iyo Washington, haddana falanqeeyaashu waxay ku kala qaadsan yihiin saameynta dhabta ah ee dalka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqaa ayaa sheegay in booqashadu ay ujeedadeedu tahay in la xoojiyo nabadda iyo xasiloonida gobolka ee galbeedka Aasiya. Booqashadan waxay ku soo beegan tahay xilli dadaalada lagu dhexdhexaadinayo heshiis nabadeed oo ay hore u bilowday Islamabad ay istaageen, Washingtonna ay diyaarinayso qabateen cusub sida ay ku warantay Al Jazeera. Warbixin cusub oo loo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay u muuqato in ay wax ka beddelayso qaabka ay uga howlgasho Soomaaliya iyadoo yareynayso tirada weerarada balse xoogga saartay howlgallo si gaar ah loo qorsheeyey loona bartilmaameedsaday. Warbixintu waxay sidoo kale soo bandhigtay sheegashooyin ku saabsan xiriirka Al-Shabaab ay la leedahay Xuutiyiinta Yemen iyo Al-Qaacidada ee Jasiiradda Carabta. Tababar la sheegay in boqolaal dagaalyahan oo loo fidiyey iyo isku dayga kooxda ee helitaanka qalab casri ah oo ay kaga hortagto diyaaradaha aan duuliye lahayn. Dukumeentigan oo tirsigiisu yahay S2026
651 lana daabacay 10kii Agoost 2026. Waa warbaahinta 38aad ee kooxda dagaalka cunaqabateynta ee Qaramada Midoobay, taasi oo baarta dhaqdhaqaaqyada Daacish, Al-Qaacida iyo kooxaha xiriirka la leh. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan warbaahintu ayaa ah in Al-Shabaab ay u muuqato in ay ka leexatay weeraradii tirada badnaa ee la arkay sanadkii 2025. Sida lagu sheegay warbaahinta, kooxda waxay qaaday weeraro ka yar kuwii hore gudaha Muqdisho iyo deegaanada ku dhow, iyadoo howlgalladeeda ay si weyn ugu urureen Hirshabelle, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Galmudug. Qaramada Midoobay waxay arrintan ku tilmaamtay u wareegid howlgallo bartilmaameed iyo istiraatiijiyad leh. Tani waxay muujin kartaa in kooxdu ay isku dayeyso in ay si taxaddar leh u doorato bartilmaameedyada iyo waqtiga weerarada, xilli ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibadoodu ay kordhiyeen duqeymaha iyo howlgallada ka dhanka ah hoggaanka kooxda. Warbaahintu ma faahfaahinin noocyada bartilmaameedyada ee Al-Shabaab ay mudnaanta siinayso ama heerka isbeddelkan saameeyay awooddeeda guud. Warbaahintu waxay sheegtay in ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibadoodu ay horumar ka sameeyeen wiiqidda hoggaanka Al-Shabaab. Cabdulaahi Cismaan Maxamed Caddow, oo loo yaqaano Injineer Ismaaciil, ayaa la sheegay in la dilay bishii Diseembar 2025. Warbaahintu waxay sheegtay in mas'uulka ka ahaa howlgallada qaraxyada macmalka ah ee kooxda, Cabdulaahi Xasan Cabdi Coosbole, oo lagu naanaysi jiray Cabdulaahi Wadaad, kana shaqaynayay arrimaha maaliyadda, ayaa la dilay bishii Janaayo. Maxamed Sahal, oo loo yaqaano Abu Usaama, loona magacaabay in uu beddelo Cabdulaahi, ayaa isna la dilay bishii Febraayo. Inkasta oo khasaarahaasi la gaarsiiyey hoggaanka kooxda, warbixintu waxay sheegtay in hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diiriyo oo weli firfircoon yahay, laguna tuhunsan yahay in uu ku sugan yahay koonfurta Soomaaliya. Maxkamadda Suuriya ayaa xukun xabsi daa'in ah ku riday muftigii hore Awad Axmed Badraddiin Xasoon kadib markii lagu helay dambiyo dhowr oo ay ku jiraan kicinta colaadda diimeed iyo ka faa'iidaysiga booskiisa xilliga Bashaar al-Assad. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Carabta ee Suuriya SANA, Xasoon wuxuu ahaa muftigii ugu sarreeyay ee rasmiga ah ee diinta Islaamka ee dalka in ka badan 16 sano. Waxaa loo yaqaanay xiriir dhow uu la leeyahay Assad iyo inuu si joogto ah ula soo muuqdo munaasabadaha diimeed. Waa qofkii 10aad ee lala xiriiriyo nidaamkii hore ee ay maxkamaddu xukuntay tan iyo markii ay xukunka la wareegeen mas'uuliyiinta ku-meel gaarka ah. Wakaaladda SANA waxay soo xigatay Fakhruddin Al-Rayyaan oo guddoominayay dacwadda, isagoo sheegay in maxkamaddu ay soo gudbisay in hay-adda diinta ee rasmiga ah ee gaar ahaan Daar al-Iftaax aqalka fatwa loo adeegsaday xilligii nidaamkii hore si loogu daboolo diinta howlgallada militariga ah iyo amniga, iyo in loo caddeeyo dadweynaha. Wuxuuna tilmaamay sababta loo bixiyay isticmaalka bambooyinka fuusto ee meelaha rayidka ah, taasi oo u arkay in ay xadgudub ku tahay sharciga bani'aadanimada ee caalamiga ah. Al-Rayyaan wuxuu intaasi ku daray in maxkamaddu ay xaqiijisay
ku lug lahaanshaha Xaasoon ee dambiyada ka dhanka ah aadanaha iyo dambiyada dagaalka, iyo sidoo kale bixinta taageero dhaqaale oo joogto ah oo uu siiyo hoggaanka iyo xubnaha Cutubka Qudus, kuwaasi oo ka qayb qaatay howlgallo militari ah oo ay weheliyeen ciidamada nidaamkii hore. Xukunka waxaa ka mid ah qabashada iyo la wareegidda hantida guurta iyo midda aan guureyninba ee Xaasoon uu leeyahay loogu celiyo islamarkaana loogu faa'iideeyo khasnadda dadweynaha. Maxkamadda Dambiyada Afraad ee Dimashq ayaa bilowday dacwadda Xaasoon 25kii Juun, iyadoo lagu saleynayo dacwada la xiriira doorkiisa xilliga xukunka al-Asad, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Suuriya. Dacwadaha waxaa ka mid ah in uu ka faa'iideysto booskiisa dano shaqsiyeed, in uu xiriir dhow la sameeyo Asad, agaasimihii hore ee agaasinka sirdoonka guud, maamulo saraakiisha sare ee ciidamada, iyo hogaamiyaasha kooxaha hubeysan ee ka barbar dagaalamaya nidaamka. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu kicinayay shaqaalihii hore ee ciidamada iyo saraakiishii in ay taageeraan nidaamka ka dhanka ah ee kuwa ka soo horjeeda, iyo in uu sameeyay hadallo ay maxkamaddu sheegtay in ay kicinayeen rabshado ka dhan ah dadka rayidka ah ee ku nool meelaha ka baxsan gacanta taliska iyo qaxootida, gaar ahaan bariga Aleppo iyo Idlib.